hadda ka hor baa barigan BBC-da joogay baa laba doonyood oo boosaaso ku socda badda ku degay dabadeedna 400 qof oo Soomaaliya ku dhintay markab dagaal oo Mareykanku leeyahay ayaa meydkii ka dul gurayay badda 400 oo qof baa markaliya dadkaasi badana waxay quudareynayeen inay wadanka Saudi Arabia tagaan ujeedadoodu ma ahayn inay Yemen intay tagaan deedna xiriiq qaxooti ay galaan oo xaaladooda ay ka warhayaan BBC-da deedna waxay dirtay in boosaaso iyo aan tago Djibouti iyo Cadan marka waa meelihii ay ka soo baxayeen iyo meeshii dadkaasi ay u socdeen nin sarkaalo country representative oo reer Ghana binaadamku isku wada mid maaha laakiin ninkaan la kulmay ayuu baan idin ka sheekaynayaa ayaan u tagayo xafiiskiisa aad moodo xafiis madaxweyne waa country representative UNHCR deedna wuxuu yiri maxaad u socotay waxaan ku yiri labada doonyood ee degay ee 400 ku dhinteen ayaan u socday inaanu Soomaalida u sheegno inaan Yemen laga wada gudbi karayno Saudi Arabia oo halkay u socdaana aan qof kasta gaari karaynin ninkii show waxaan duulaan ku noqday shaqadiisii ilaa halka wuxuu fadhiyaa dadka dooyaha soo raacay wuxuu igu rindiyay waxa ku weydiiyay haddii sanadkii 5,000 isku soo dayaan oo kun dhintaan it's not a big deal waxyaabaha qaarkood waxaad ka fili karaysaa qof bini'aadanimada ama ka dheeraaday ama aan waxan baday shaqo ku lahayn ninkani waa ninkii Yemen oo dhan u joogay UNHCR markaasaan ku yidhi markaa 1,000 qof oo Soomaaliya inay dhintaan adiga macna kulama leh wuxuu yidhi Soomaaliya way ku dhintaane 4,000 kala soo galiyay buu yidhi haddii kumbadda ku soo dhintaan recordkii iyo wixii bay taas ka laabtay ayaan ku rindiyay Soomaaliya waa wadankoodii oo amaha ku noolaadaan amaha ku dhintaan laakiin inay badda ku dhintaan Soomaaliya adiga macna kuma wuxuu yidhi macna ma laha waa Soomaaliya waa ku dhintaan 4,000 kala halkan imanay buu yidhi ninkii waxaan ku yidhi in adduunyadu u soo dirato noocaagan oo kale waa ninka kaliya sarkaal ee weliga yar bislaynay horta ee waraysi aan ugu tagay in noocaagan oo kale adduunyadu u soo dirato inay dad masaakiin caawiyaan oo ay u gargaaraan aad iyo aad baan uga xumahay nagu kala kaxay meesho bahalkayga iska ma soo noqon buu horta don't get me wrong waa naga taban ku maalinta waxaan jeclaan lahaa inuu recordku ii shidan yahay oo haddii aan intaa duubi lahaa waxay noqon lahayd scandal weyn laakiin waxaan wax cadayna maan hayn waxaan uga jeedaa tusaalahan aan u soo qaatay ninka odayga 1,000 qof oo Soomaaliya inay dhintaan isaga waxay ahayd iska caadi bay ahayd oo aan dhibaato lahayn marka qofka shisheeyaha sidoo kuugu damqanayo iyo qofka Soomaaliga isku mid maaha noqon mayso isku mid marka waxaan idin kula talin lahaa arinta aynu isugu nimi walaalayaal in si weyn loo qaato dadkeenii Ilaahay ka soko inagayna sugayaan aad iyo aad baa u mahadsantiin